loogu xidho oo cawdadeedii bannaanka la dhigo weli caalamka lagu maarag islaamnimadana lagu maarag soomaalina lagu maarag ciidagalaas laga arkay bilihii ugu dambeeyay lagu qaadaadhigay baraha bulshada Cabdi Ciise Cajuun iyo sidoo kale Safiya Tusmo ayaa halamaana Soomaaliyeed oo isqaba hadaba cilado soo kala dhaxgalay iyo sidoo kale khilaaf weyn oo noqday mid baraha bulshada iyo sidoo kale Safiya Tusmo oo laga duubay muuqaalo zira halkaas ay ka soo hadleen odayaasha ka soo jeeda Safiya Tusmo sidoo kale Safiya Tusmo iyo sidoo kale odayaasha ka soo jeeda ayaa waxay daliil aad u culus u direen beesha uu ka soo jeeda Cabdi Ciise Cajuun sidoo kale odayaal dhaqameedka ayaa lagu baran in ay wax falagaadeen laakiin ay xal u raadiyaan kale odayaasha Cabdi Ciise Cajuun ka soo jeeda ayaan laga arag sidoo kale beelaha ay ka soo jeedaan Cabdi Ciise iyo Safiya Tusmo ayaa hawada isku mariyay arrimo aad u kulul kadib markii uu arrinku faraha ka sii baxay Safiya Tusmo iyo Cabdi Ciise Cajuun hadaba Cabdi Ciise Cajuun oo u baxsaday magaalada Jijjiga dowlad deegaanka Itoobiya ayaa wali xataa aan ku soo noqon gudaha Soomaaliland hadaba Safiya Tusmo dhowr maalmood ka hor ayuu ka duushay garoonka Hargeysa International Airport kadib markii arrinka uu cirkaas ku war shareeray hadaba beelaha ay ka soo kala jeedaan ayaa midba sidoo u hadlayo ay hadaladooda laga dhex dareemaya in ay dagaal beeleedyo ka dhex qarxi karaan sidoo kale Safiya Tusmo waxay ahayd in mid ka soo jeeda beelaha hadda sidoo kale ka hadlaya aan xagga hore inagu soo tusnay hadaba Soomaalida dhexdeeda ayaa arrinka Safiya Tusmo u arkaysay iyo Cabdi Ciise kala dhaxeeya inuu haa wax brank ama jiliina hadaba maadaama reer gaadhay arrinka wuxuu noqday mid faraha ka sii baxaya sidoo kale suldaanka guud ee beelaha dega Soomaaliland ayaa codsi u diray sidoo kale in ay xaalka dajiyaan runtii hoos loo dhigo maadaama sharafta Safiya Tusmo ay kolba maalinta ka sii dhacayso ay aad uga sii xumaanayso maadaama Safiya Tusmo tahay gabadh la qabo sidoo kale haweena taasoo aan gudbanayn ama wacnayn in xaalkeeda ama sidoo kale sharafteeda lagu dhaqmo baraha bulshada si xun sidoo kale dadka Soomaaliyeed ay kolba dhinac ama meel ku soo sheergareynayaan taasoo kolba muuqaalada zira laga baahiyay ay kolba qof si gaaraysa halkaasna ay ka soo gaarayso walaasheen Safiya Tusmo sidoo kalena ay sharafteeda noqonaysa mid aad hoos uga sii dhacaysa hadaba suldaanka ayaa codsi u diray in beelaha ay ka soo kala jeedaan labadan qof ee sidoo kale dhibaatada soo kala gaadhay si qarsooni ay hawshan u galayaan si degdeg ah si arrinkaas loo soo gabagabeeyo reer ay ka soo kala jeedaan Safiya Tusmo iyo sidoo kale Cabdi Ciise ayaa hawada isku marinaya baraha bulshada ay Soomaalidu ka xiriidho hadalla sidoo kale soo kala jeeda halka ay sidoo kale Safiya Tusmo ay reerkooda ay aqoonsan yihiin in ay reerkaasi sharaftii kaga ciyaareen gabdhaha Soomaaliyeed gaar ahaan reerka ay Safiya Tusmo ka soo jeedo hadaba dhinaca kale haddaan eegno reerkan Cabdi Ciise Cajuun ayaa iyaguna